muuqaalkan waxaa warbaahinta la wadaagtay hooyo Munaw ku nool magaalada Burco waxayna sheegtay in qofkan jirdilka loo geysanaya ay tahay inay dhashay oo lagu magacaabo Khadra Axmed Xaaji Gaasa oo magafay ku haysta dalka Liibiya. hooyadan ayaa sheegtay inay hore u bixisay lacag dhan $15,000 balse waxaa mar kale gacanta ku dhigay magafa kale isla markaana waxa uu hooyadan ka dalbaday lacag kale taasi oo aan haynin tamar ay ku bixiso. duruuftaasina waxay kaliftay inay bulshada Soomaalida iyo ummadda Islaamkaba la wadaagto dareenkeeda si ay ugu badbaadiyaan ilmaheeda uu magafuhu haysto. hooyadan ayaa sidoo kale waxay warbaahinta u sheegtay in inantan ay tahay agoon isla markaana ay lacagtii horeba ku soo ururisay duruuf adag. waxaan ahay hooyada dhashay Khadra Axmed Gaas Xaaji Waraabe oo iga tahriibtay Liibiya laygaga haysto oo iga maqan tahay sanad iyo badh oo lay weydiiyay magafii hore way weydiiyay 15,000 oo 15,000 ee hore aan bixiyay iminkana mid kale loo dhiibay. waxaan ummadda Islaamka ee muslimiinta aan ka codsanaya si naxariis leh inay ii soo caawiyaan oo iminkana aan wax kale u hayn oo god lagu riday oo lagu garaacayo. marka islaamka ummadda Islaamka waxaan ka codsanaya in si naxariis leh igu soo caawiyaan oo waxay tari karaan igu soo taraan. magafii Burco ka kaxeeyay wuxuu mariyay Itoobiya 15 cisho gudahood bay ku tagtay. maalintii 15aad ayaa layla soo hadlay ninkii magafa ee Liibiyaanka bay soo garaacay. markii soo garaaceen wuxuu yiri 15,000 baa laga rabaa inantaadu way jajaban tahay gaari baa la dhacay 15,000 degdeg waa inaad u soo bixisaa. waxaan ku ma hayo waa agoon waxay ahaan u hayaa ma jirto silciyo balanbaliyo bay hoof baan ku soo koriyay waxba ka dayn meena hadalka iyo wararka ma joodno buu lacagta soo dhameystir sanad bay ninka uu gacanta ku hayay kii aan u wareegay magaalada ee aan u dawarsi tagay ee aan Burco u dhax wareegay aan bac u dhax qaatay ee la soo caawiyay aan 10,000 ee hore uu aan bixiyay ee aan ku inantii waayay ii soo celi waaniga lacagtaada ku dhameystiran silca ku dhameystiray ee ummadda dhex maray ayuu haddana wuxuu u gudbiyay nin kale oo magafa ayuu gacanta ka galiyay wuxuu iga doonayaa ninkii kale magafiina $10,000 oo kale ayuu yiri soo dir halka god buu ku riday halkaas ku garaacaya waa jirkeedu uu dilan yahay nabaray jirkeedu ku yaala oo timihii waa ka dhukuray waa dilan tahay nabara waaweyn oo aad arki doontaan oo sawiradeedu muuqaal igu soo diray ayaa ku yaala jirkeeda meel kasta baabacoon lugaha boodiyaha meel aan nabara ku oolin ma jirto iyadoo ay dilayo godka ku jirtana wuu ii soo diro muuqaala de ummadda Islaamka baan ka codsanaya inanta ayru aan cid islaam oo kale oo maanta caawinayso malaha ehel malaha caawiya oo ku tara anigu baa u orda anigu baa u wareega sarimada dadka u dhax wareega qof ku yiraahdo adigii shalay soo maray iyo qof yiraahdo maantana isiiya de Islaamka Ilaahay waxaan ka codsanaya ummadda inanta ayru agoonta ay halka ku sulcaysay lagu dilayay ku dhibaataysan maantada wuxuu iga doonayay ila soo hadlay igu yiri waxaad soo dirtaa $100 oo aan dawo u siiyo way xanuunsanaysaa $100 soo dir haddaad $100 soo dir weydana inta in ka badan baan ku sii dhufanaynaa bay igu yiraahdeen. ummadda Islaamka waxaan ka codsanayaa muslimiinta ee daliya dabadba jooga inay soo caawiyaan. haddaba ummadda Soomaalida ay muuqaalkan daawata waxaa laga codsanayaa inay wixii ay kari karayaan ku caawiyaan hooyadan iyagoo ku soo hagaajinaya lambarka shaashada idinka muuqda. Shaafici Maxamed Ibraahim, telefishinka caalamiga ee Somali Cable, magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer.